بسم الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده waxaa noo socda casharadeenii taxanaha ahaa ee aan marba mid ka mida magacyada ilaahay subxaanahu watacaala aan sharaxaad kooban oo intuu ilaahay nooga fududeeyo aan kaga hadlaynay. waxaan hadda ka hadli doonaa magaca ilaahay subxaanahu watacaala ee ah alxaliim, oo ah alle subxaanahu watacaala inuu yahay alle khalqigiisa u dulqaata oo u dulqaad badan. ereyga kelmadda la yiraahdo alxaliim ama dulqaad waxaa loola jeedaa qofku marka lagu gardaroodo inuusan ka falcelinin isaga oo awooda inuu ka falceliyo. quraanka ilaahay subxaanahu watacaala ilaa 11 jeer bay ku sheegaan culimadu inay ku soo aroortay kelmadda alxaliim ayadoo siyaabo kala duwan ku timid, laakiin ah sifooyinka ama magacyada wanaagsan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay. waxay ku imaatay wallahu ghafuurun xaliim, waxay ku timid wallahu ghaniyyun xaliim, waxay ku timid wallahu shakuurun xaliim, iyo wakaana allahu caliiman xaliima. ilaahay subxaanahu watacaala marka sifooyinkiisa u gaarka ah oo ilaahay gaarka u leeyahay waxaa ka mid ah alla inuu xaliim yahay oo u dulqaate uu yahay. xaliimna waxaa loola jeedaa in aad jeceshahay inaad dadka iska cafiso oo aadan waxba u qabsanin oo aad u dhaafto ciqaabta ama aargudashada ama ka tallaabo inaad ka qaadana aadan ku degdegaynin. waana sifooyinka nebiyadiisa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay ina ibraahiima la awaahun xaliim. sidaa darteed dulqaadku waxaa weeye cidda aad u aragtay inay kugu xadgudbayso ama khalad samaynayso inaadan ciqaabta kula degdegin. ilaahay subxaanahu watacaala marka khalqigiisa kuma soo dedejiyo inuu ciqaabo ama uu cadaab usoo dedejiyo, wuxuuna isku dayaa marar fara badan oo ka mid a inuu u dhaafo khaladaadka ay samaynayaan. wuxuuna siiyaa asbaabihii khaladaadka haddii ay galaan waxyaabihii looga dhaafi lahaa oo qarin lahaa, oo ay ka mid tahay haddaa wanaag samayso in khaladkii aa gashay ama xumaantii aa samaysay inay qarinayso oo ay la tegayso. ina alxasanaat yudhibna asayi'aat. mararka qaar ilaahay subxaana watacaala dulqaadkiisa waxaa ka mid ah inuuba adiga khaladkii aa gashay lagugu bedelayo xasanaad oo wanaag lagugu bedelayo haddii aad si fiican u toobad keento. fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat. oo ilaahay subxaana watacaala uu ugu deeqayo khaladaadka xataa aad gasho haddii aad si fiican u toobad keento in khaladkaagii wanaag iyo xasanaad lagugu bedelayo oo intuu ilaahay kuu dhaafo kuu dulqaato kabacdina wanaag lagaaga dhigayo. sidaa darteed qofka bini aadamka ah ee leh sifada ama tilmaanta la yiraahdo inuu dulqaad leeyahay, waxyaabaha lagu garanayo waxaa ka mid ah inaan laga caraysiin karin, oo qofkaanu marka uu la damco in laga caraysiiyo inaan la awoodin in laga caraysiiyo. waxaa kaloo laga rabaa qofka dulqaadka markii laga doonayo tilmaanta kale uu leeyahay waxaa waaye meel uu jawaab ka bixin karo ama hadal uu ka oran karo inuusan ka oranin oo uu dulqaadkiisa isticmaalo. waxaa kaloo laga rabaa marka aad rabto qof inaad ciqaabto ama xaqa ahaato ama argoosasho ha ahaato noocay rabto ciqaabta ha ahaato inaad qofkaas ka dayn kartid ciqaabtii aad ku samaynaysay, ama aad ka dibdhigi kartid oo mar kale aad u dulqaadanaysid oo isleedahay bal mar kale fursad sii, fursad labaad sii ama fursad saddexaad sii. laakiin qofkii khaladkaa galaba haddaad isla markiiba jawaab siiso ama jawaab afka a siiso ama mid adina siiso ma noqonaysid sifada ah, ma yeelanaysid inaad tahay qof dulqaata. waxay kaloo culimmadu yidhaahdaan in aadan aqoonin in si loo jawaabo ama aadan aqoonin si tallaabo looga qaado kuma tusinaysa inaad dulqaad leedahay. lianna haddii aadan jawaabta garanaynin oo qofkii waxaad ugu jawaabtaba aadan garanaynin dee waxaad tahay qof afguraca oo aan hadal aqoonin oo waxba oran karin. haddii aadan awoodin inaad qofkii ciqaabtona ma aadan dulqaadanin oo adigaaba tabar daran. marka tabardarradu ma ahan macnaheedu inaad dulqaad leedahay. saa darteed dulqaadku waxyaabaha uu qofka ka badbaadiyo waxaa ka mid a inuu ka ilaaliyo fudaydka, oo qofku dulqaadka u dhashay inta badan wuxuu ka badbaadaa inuu fudayd uu la yimaado, sida xikmaddu ay kaaga badbaadinayso inaad qof doqon ah oo go-aano khaldan gaari karo aad u noqoto. haddii aad xikmad leedahay way kaa badbaadaysaa inaad noqoto qof doqon ah. sidaa darteed qofka hadduu degan yahay wuxuu ka badbaadayaa inuu noqdo qof fudfudud. ilaahay subxaanahu watacaala marka uu yahay alle khalqigiisa u dulqaata oo xaliim ah, waxyaabaha ugu sameeya waxaa ka mid a inuu u dhaafo wax allaale iyo wixii ay galeen, mararka qaarna uu asturo haddii ay khalad galeen. sidaa darteed ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku dadaalaa khalqigiisa inuu marka horena cafiyo, marka labaadna asturo,
marka dambana uu dulqaato ayagoo dambi sameynaya mararka qaar. waxaa la yiraahdaa marka haddii qofku la rabo inuu dulqaad la yimaado, marka koowaad waa inuu yahay qof awood leh. haddii aadan awood lahayn aad ku tallaabo qaado, macnaheedu dulqaad lamaada imaaninee waxaa tahay qof tabardarro ay hayso. sidaa darteed waxaa noqonaysaa qof daciifa oo aan tabar lahayn ee ma tihid qof dulqaatay. waayo waxaad la mid tahay qof aan awoodin inta wixiisii laga dhacay inuu difaacdo, ama inta la caayay aanan garanaynin wuxuu ku jawaabo iska aamusay. ma noqonaysid qof dulqaad ah. waxaa kaloo lagaa doonayaa mararka qaar dulqaadka waxay ku timaadaa inaad isdoqomayso oo aad isyara maahiso. qof baa khalad kugu sameynaya, inaad isaga dhigto qof aan wixiiba aanan fahmin ama in la xumeeyeyba aanan garanin. yacni mararka qaar qof baa hadal xun ku dhahaya, haddaa awooddo marka inaad ismaahisoodba qofkii laftigiisa aad shibba ka tiraahdo, inaad ka aamustay keliya maahane aad isu ekaysiiso qof aan wixiiba fahmin ama aan arkin, waxay la mid tahay dulqaadka. waxaa tusaale u ah adiga meel maraya ama waddo maraya hadduu qof kugu istaago, waxaa suuroodaba inaadan uga sheegin qofkii oo aad iska socoto oo aadan dhihin war maxaad iigu istaagtay. marka midaas waxay inta badan tusaale u tahay inaad awood u leedahay inaad isyara maahiso. dadka dulqaad kale noocyada ugu fiicanna waxaa ka mid ah inaad awood u leedahay inaad ka soo qaado wixii inaysan dhicin. sidaa darteed waxaa mar walba lagaa doonayaa inay ku kala caddahay dulqaadka iyo waxyaabaha kale la rabo inaad kala garato. waxaa waaye farqiga u dhexeeya inaad wax sugato iyo inaad dulqaadato. qof baad deyn ku leedahay, deyntii baad ka sugatay, meeshaas dulqaad lama dhehe. waxaa la dhahaa qofkan xaqii aad ku lahayd unbaad xoogaa sugtay intuu kaaga imaanayo. laakiin dulqaad waxaa la yidhaahdaa inaad awood u leedahay wixiiba inaad ka dhaafto oo aad faraha uga qaado oo aad ka cafido. adiga marka bini aadamka waxaa laga rabaa haddaad doonayso inuu ilaahay kuu dulqaato oo khaladaadka aad gelaysa oo ilaahay subxaana wa tacaala dulqaad kugu maamulo oo xilmiga ilaahay aad hoos gasho, waa ina adigana khalqiga ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray aad u dulqaadato. waxa u horeeyo la rabo inaad u dulqaadato waa xaaskaaga, waxaa la raba inaad u dulqaadato waa caruurtaada, waxaa la raba inaad u dulqaadato waa waalidka, waxaa la rabaa inaad u dulqaadato dadka kula noole ama dariska kula ah ama maxaan ku ihahdaa shaqada kaala dhexaysa. sidaa darteed sifooyinka uu nabiga calayhi salaatu wasalaam aada u ammaanay oo dadku ugu ammaanay bay ka mid tahay, oo mararka qaar uu ku tilmaamo ilaahay iyo rasuulkiisaba ay jecel yihiin. ina fiika la khaslatayni yuxibuhum allahu warasuuluh alxilmu walanaat, oo ah qofku inuu dulqaadna leeyahay kaadsiyana leeyahay. kaadsiyada oo loola jeedo waxa tallaabada inta aadan qaadin ina aada uga fiirsan karto oo aad garanayso tallaabada aad qaadayso ma kugu habboon tahay, ma bannaan tahay, ma sax ma tahay. su-aalahaas oo dhan marka hore inaad isweydiiso. haddii wax si kadisa a kuu qabtaanna aad awood u leedahay inaad u dulqaadato si dulqaadna aad ku maamusho. waxaa kaloo jira mararka qaar dadku isdhexgelgeliyaan tilmaamo kala duwan, mararka qaarna isu eeg. waxaa ka mid a dulqaadka, cafinta iyo qofka aan waxba dhaafin oo la yidhaahdo xiqdiga qofka qabo ama soomaaliga lagu yidhaahdo cuqdadlowga. marka saddexdoodaba waa saddex sifo oo mararka qaar cagsi isku ah, aadna u kala fog, mararka qaarna meelo isaga eg. waxaa lagu fasiraa qofku haddii uu yahay qof go-aansaday inuu aargoosto oo wixii lagu sameeyey uu ka aargoosto, qofkaas waxa uu markii horena kusii talagalay inuu suganayo maalin uu go-aansaday haddii uu jaaniskaas soo maro inuu ka aargudanayo, qofkaas waxaa la dhahaa xaquud. waa qof cuqdadlow ah kulana suganayo waqtigii uu ka aargudan lahaa. haddii laakiin qofka waxaa la yidhi uu go-aansado inuusan kaa aargudanin laakiin uu sheego, qofkaas waa qof ku cafiyey. yacni dhib baa qofkan kuu geystay, waxaad leedahay ninkan waa iska cafiyey mana ka aargudan doono. go-aankaasaad gaaraysaa, laakiin go-aankii waad sheegaysaa. waxaad odhanaysaa wallaahi ninkan waabu dhibaato ii geystay oo saasuu hadda ka hor yeelayoo laakiin waa iska cafiyey. kaa marka cafis baa la dhahaa. laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen dulqaad waxaa la yidhaahdaa inaad go-aansato qofkii ku xumeeyey in aadan ka aargudanin. marka hore go-aankaas inaad gaarto, marka labaadna aad go-aan ku gaarto qofkaasi inaadan tusinin xataa inuu beri ku xumeeyey ama maalin uu dhibaato ku geystay, oo aad ula dhaqanto si wanaagsan. idfac billatii hiya axsan. yacni qofkan waxaad go-aansatay inaadan wax dhibaato ah oo falcelin ah oo aargudasho ah aadan ku samaynin. waxaad kaloo go-aansatay inaadan marna muujinin asagana tusin, dad kalena aan tusin. midaasa waxaa la yidhaahdaa dulqaadka. marka saddexdaas farqi baa u dhexeeya. dadka qaarna wayba ku sii xeel dheeraadeen oo qisooyin fara badan iyo sheekooyin baa laga soo wariyaa
waxaa jira nin la sheego inuu aad iyo aad u ahaa nin dulqaad badan oo la yiraahdo al-Axnaf ibn Qays. waxaa la yiraahdaa isagoo dad reerkiisa ah meel ku sugayaan oo dad fara badan ay yihiin oo u soo socdo baa nin wuxuu yiri yaa itusi kara al-Axnaf ibn Qays oo careysan oo laga xanaajiyay waxaana siinayaa 1 dirham. nin baa marka wuxuu yiri aniga ka careysiinaya asagiyo kaligiisoo marka arkay meel wada abuu soo agmaray asagiiba talaabadii la soo qaaday oo jidkii la soo socday markaasuu si kaliisa wuxuu ugu bilaabay inuu caayo oo aflagaadeeyo oo kelmadba kelmaday ka xun tahay uu ku sheego. al-Axnaf ibn Qays marka ninkii ma uusan fiirinin ma u jawaabin waxa ma dhihin uu iska socday socodkiisu iska watay kana waa garab socda inta uu aflagaadeynaya waana caynaya. muddo markii la socday baa waxa u muuqatay dadkii ay u soo socdeen oo ay xaqoodii u soo socdeen markay dadkii u soo dhawaadeen buu ninkii inta eegay wuxuu ku yiri in adeerkayo wixii aad rabtay inaad idhaahdo maxaa ku dhiman hadii wixii ku dhiman hadda dhamayso oo boobsi hadii kale markaan dadkanaga u tagno oo reerkii aan madaxda u ahaa odaga u ahaa markaan gaarno hadii caydan iyo hadalkan aad sii wado waxa laga yaabaa wax aadan filanin inay kugu sameeyaan ama dhibaato ay ku geystaan. marka waxaan ka codsanayaa in hadii wax ku dhimanayeen aad hadeertaan dhameystirato. يعني dadku waxay leeyihiin ninka dulqaadkiisu wuxuu gaaray inuu ka falceliyo iska dhaafay ninka hadii wax u hareen ba ama aflagaada u hartay ama hadal u hartay inuu yiraahdo war tolkay hadii ku maqlaan dib ku gaarsiin karaan tartiibtaada hadda boobsi bal wixii dhamayso. sida darteed waxay ku tusinaysaa heerka dulqaadkiisa uu ninka gaaray oo ah inuu saxataa asagii u sii naxayo asagiina u sii roonaanayo. ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka tilmaamaha uu leeyahay waxa kamid ah inuu alle khalqigiisa uunkiisa noocyadiisa kala duwan oo dulqaato ayagoo mararka qaar xadgudubyo aad u waaweyn sameynaya. yani fircawn oo aad u qooqay oo aad u kibray oo khalqiga dhibay oo markii dambe gaaray inuu yiraahdo anigaaba ana rabbukum al-a'la anaaba ilaahay ah mudda laga faraha laga qaadayay oo loo sugaayay oo shib laga lahaa. sida darteed xataa ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadkii يعني sifooyinka uu san ilaahay mudneen ku sheegay ee ilaahay raaciyay ama yiri ilaahay waxbuu dhalay ama yiri ilaahay waxba la dhashay ama ilaahay subxaanahu wa ta'aala tilmaamo iyo magacyo aanan laa'iq oo ku habooneen ku dhawaaqay. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu arsaaqay xooluhu siinay caruur buu siinay yani iska daa inuu ayaga ka argoostay wuxuu ugu jawaabay inay noolaadaan oo khalqigooda ku dhex jiraan oo dadkooda caadiga iska ahaadaan. mararka qaar dadkii khalqigiisii muuminiinta ahaa dhibaayay buu mararka qaar ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu aayadaha quraanka muujinayaan inuu tusinayo inuu jeclaan lahaa inay hanuunaan oo ay fiicnaadaan. ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri innal ladina fatanu almu'minina walmu'minat thumma lam yatubu. culimadu waxay yiraahdeen gaar ahaan Sheekh Xasan al-Basri wuxuu leeyahay ilaahay deeqsinimadiisa iyo ilaahay karamkiisa waxaad ku garanaysaa kuwii muuminiintiisa dhibay kuwii rumeeyay kuwii dhibay ee dhibaatada u geystay buu haddana wuxuu leeyahay toobad keena. yani wali wuxuu u furayaa albaabkii ay ku gali lahaayeen inay asaga u soo laabtaan oo waxa ay ku dhex jireen ay ka dhex baxaan. sida darteed dhaqamada ugu wanaagsan oo la rabo qofka bini aadamka ama qofka muslimka inuu yeesho waxa kamid ah inuu leeyahay dulqaadka marka waxay keenaysaa inaad dadka ka weynaato waxay keenaysaa dadka dhexdooda inaad sharaf ku lahaato waxayna keenaysaa inaad leedahay tilmaan dadka ka sareysa. laakiin waataan hore u soo sheegnay marka aad dulqaadka sameynayso waa inaysan kaaga iimaaneyn inaad tahay qof tabar daran ama aysan ka iimaaneynin qof aanan jawaabi karin waxba sameyn karin. laakiin marka aad jawaabna hayso ama ficil ama hadal ah laakiin aad dulqaadato dadka dhexdooda waxaad ku yeelanaysaa karaamo waxaad ku yeelanaysaa sharaf waxaad ku yeelanaysaa qadarin. intaasuna waxay ku keenayaan inaad mar walba noqonayso qof dadka hogaamiya oo asaga u noqonayo qofkii ay ku dayanayeen oo dabeecad ahaan ay uga dayanayeen oo dhaqan ahaan ay uga dayanayeen. waana mid kamid ah tilmaamaha ugu wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala magacyadiisa iyo tilmaamihiisa kamid ah. wassalaamu calaykum waraxmatullahi